qaybihii la soo dhaafay ee barnaamijkeena isniin iyo internet oo aan soo qaadanaynay inta badan waxaan ku soo qaadanaynay qof dumar ah in dhibaato loo geysanayo dhibaatadaasoo weliba aan u badnaysiinaynay xagga iyo maaliyadda. Haddaba anigoo rabo dhankaas inaan ka gudbo oo aan sheekada markaani ama qaybta marka aan soo qaadanayno aan ka dhigno yacni dhinac kale iyo maaragtay markaasi waxyaabaha internetka gudihiisa ka dhaco ayaa waxaan arkay documentary aan la dhaafi karin. Waa qayb kale oo haweeney markaani Australian inta jacayl beena lagu abuuro internetka dushiisa ah oo la dhacayo oo macnaha lacag badan laga dhacayo. Marka Australianka askartooda iyo TV-gooda ayaa waxa markaasi ay u tagayaan qofkii haweeneydaasi dhacay in ay uga soo argudaan oo waliba ay soo qabtaan. sidee lagu soo qabanayaa haweeneyda sidee lagu dhacay xagee degan tahay maxay xaaladeedu tahay ayaan markaa muuqaalkan aan isku ogaanaynaa. ku soo dhawaada isniin iyo internet. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب شرفت بدن سو dhawaada markale ku soo dhawaada muuqaal kale laakiin saaxiibkeen Cusmaan oo soo channelka soo pro markale waxay leeyahay kuma santiin sida mar walba aad la socotaan muuqaalada aan channelka soo gelino sida wala gareynaysaa oo share gareynaysan hadii aad tahay qof channelka ku cusub oo hadda nagu soo biiray channelka subscribe gareeyay aad iyo aad u maasantahay soo dhawo. Okay, haweeneydan waa 53 jir u dhalatay wadanka Australia. waana qof kaligeed oo single ah oo guriga ku soo ururtay. marka waxay istiriisada sheekooyinka kale aan ku soo qaadanaynay oo logic ah yani internetka sababtoo ah internetka yani waxay dad ku aadaan inta badan waa wax kaliga adiga sir ku ah waa. marka waxay ku hagaagtay nin magaciisa ugu sheegay in la yiraahdo Benjamin. ninkaas waxa uu sheegay marka inuu ku sugan yahay wadanka Malaysia. waxa uu sheegay inuu ganacsi ku jiro. waxa uu sheegay inuu caawin la yahay. waxay leedahay haweeneydaana waxaan ku sigta macnaha inaan gurigeyga aan iibsho si macnaha isaga aan wax ugu qabto. lacagta ay ku bixisay ninkani waxa ay gaareysay ilaa iyo inta ay sheegtay $90,000 $90,000 xilli ay marayso ayada is dhahayso qof adiga wax kugu falaayo maba jirtaba hadii ay aragtay nin marka muuqaal ahaan oo qurxoon ayada istiri kugu soo baxaya oo ayada markaasi rabo in oo maaragtay xiriir uu la sameeyo oo la yani arrimaha businesski waxyaabaan ila xal aniga ku imaan doono oo wada noolaan doona waxa waayde way u fudaanaysaa in markaasi ay meeshaas ku dhacdo. My life savings and you're in debt. Yes. waxa la yiri marka inta cimrigaaga lacag aad soo save gareysanaysid inta aad soo shaqeynaysay waad ku bixisay macnaha ninkani welibana deen oo $15,000 lagu yeeshay. At the risk of breaking his sister's heart, Neville has sought professional intervention to expose the truth. waxa soo faragashay marka walaalkeeda oo arkayda yani qoftaan mar walba lacag raadinayso oo markii horena xaaladeeda deganaan jirtay marka de xaaladeeda intuu ka xumaaday ayuu wuxuu sameeyay marka dad oo professional ah oo arimahaani de ku xeer leh oo baari karo inuu weydiiyo macnaha gabadhan walaashay ah ama qoftaan walaashay mar walba lacag ay bixinaysayo haddana qofkan ay sheegaysana lama arko lamana maqle yani sidee wax u jiraan sababtoo ah ayada waxba ma ogaan karto oo jacayl oo yani qof weynimo ku galaya indhisar caadiye bal isaga marka indhuu noqday dad uu raajay marka about the man you've met online and that he's not the person who he claims to be. haweeney kale oo la yiraahdo ayadana Julia oo ku shaqale arimahan oo baarto ayaa waxay leedahay macnaha aniga inta khibradeyda aan arkay jacaylka noocan oo internetka dushiisa oo qofkana weliga aadan kaamirad kala hadlin oo jacayl markaasi idinka dhaxeeyo haddana saas ay tahay lacag ku weydiisanayo ilaa iyo inta noo baaritaan ah la sameeyay 100% waa scam ama dhac. And they ask for money. It is a scam. Bidemi Bakari. His name came up. marka Julia waxay sameysay marka hawsheedii ugu horeysay waxay ahayd waxay tiri lacagta xageed ku direysay lacagta waxay tiri marka Western Union aan ku diray lacagta marka magaca lagu qaadanayay ay soo bartay waxa uu noqday nin la yiraahdo Bidemi Bakari. marka waa la sii baaray oo ninkii ayada ay markaasi raacday oo Benjamin lahay meesha maba ku jiro oo ninka ayada meel u fadhiyo oo maaragtay arintan ku sameynayo oo dhacayo lacagteeda qaadanayo oo jacaylkana u jirayo waa ninka Nigerianka ah oo meesha soo fadhiya markaasi. This is the man who's really been romancing her. gabadhii waxay soo ogaatay oo ay daba raacday Facebooka ninkani Bidemi Bakari kadibna waxay aragtay inuu yahay nin ku nool Kuala Lumpur oo aanba ka qasneen oo de yani gabdho kale wax la sawiran oo de lacagta yani haweeneydan uu ka qaado iyo kuwa kaleba markaasi isagana de uu ku tunto maaragtay wuxuu rabo uu ku sameeyo. We'll find him, we'll track him down and we'll prove to you. anaga raacayno anagaan soo qabanayno kuna cadeynayno
inuusan ahayn ninkani Benjamin oo la yiraahdo Bidemi. hadday bilaabanaya marka sheekada. Julia poses on a dating site as Amber. marka gabadhan waxay samaysay waxa uu isaga dadku ku sameeynayo oo kale oo ah magacay samaysatay oo sawir kale ugu dhagan kadibna way raadisay way ku darsatay waxayna tiri u sheegtay waan ka helay haye $20,000 so I can have some pocket money on me. ninka marka gacantiisa carabkiisa waa isla soo wada dheer yihiin isla markii wuxuu bilaabay lacaga rabaa adiga $20,000 iyo wax saas ah adiga يعني marka barnaamijku waa la soo koobaya laakiin adii kulay waqti u dhaxeeyay ilaa inta markaasi hawshaasi laga sameeyo. marka waxa la sameeyay marka gabadha markuu lacagta weydiistay ayaa waxay tiri lacagta si caadi ah kuma soo diray laakiin waxaan sameynayaa qof caadi ah kugu soo dhiibaya sababtoo ah lacag caadi ah kuma soo diri karo bangi kuma soo dhigi karo. marka isaga lacag u daranay marka waxa uu yiri okay lacagtan waxa loo dhiibay nin Daniel la yiraahdo oo ah yani nin oo retire gareeyay ama fariistay oo horay u ahaa marka askar ama ciidan kadibna isagoo dadkiisa wato TV-giisa la socdo ayuu wuxuu tagay Malaysia Kuala Lumpur hotel uu kireystay hotelkii ayaana uu ku balmiyay wuxuu yiri haye ninkii lacagta loo soo dhiibay aan ahay kaale lacagtaada markaasi soo doono. marka meesha waxa lagu diyaarshay kaamirad yar oo ilaa ay markaasi ay ka soo galayaan qolada TV-ga laakiin isaga wuxuu ahaa nin fahansan in la gaadi kare isaga soo ma bixin oo wuxuu soo diray ku kala oo isaga ka hooseeyo oo Malaysian ah oo uu isaga dirsado. Our man, the crafty conman Bidemi. isagoo marka lacagtiisa tirsanayo oo lee lacagti waatan ay tiri sababtoo ninkan waxba kala ma uusan dhihin waxa la rabaa ninka hadii uu isaga imaan waxa xitaa qofku soo diray in lagu qabto isagoo lacagti tirinayo ayaa waxa uu soo galay marka TV-ga. Hi, good afternoon. Yeah, we're from 60 Minutes Australia and you seem to be in a lot. haye marka ninkii waxa waaye ma uusan imaanin weli telefoon uu soo diray marka telefoonkiisa marka ninkan ka laga qaado waxa leeyahay lacagtaada hadii aad rabtid soo doono oo ku siinaya kadibna waa baxaysa. marka waxay sameeyeen ninkii kale oo Malaysianka ayay si fasaxeen oo direen si ay ugu soo qabtaan markaasi sababtoo ah ninkani ma aha ninka ay toos ku raadinayeen ay. The undercover police swoop. Bidemi and 5 accomplices nabbed. waxa loo galay waaba dad hotel iska degan oo marka baashaalayo marka ninkiisa u socday waxa uu tagay hotelkoodii hotelkii markii uu tagana kuwii kale ayaa la soo qabteen sababtoo dadkan waxa la shaqeynayo ciidanka Malaysianka si dadkani loo soo qabto hadii la yiraahdo yani wax ugu caansan oo dadkii iska kaam gareeyo markay noqoto wax technology ah telephone iyo waxyaabahaas iyo computer iyo waxa ugu badan hindida yani haween oo maaragtay oo online dating lagu scam garay iyo waxyaabahaasina marka la yiraahdo waxa ugu badan Nigerianka sida darteeda marka ayay gacan u siinayaan ciidanka Malaysianka si dadka noocan marka ay laftirkooda wadankooda looga sifeeyo. wajigiis fiirade sagaashan kunina ku maqan tahay ma boo ka. Do you know Rosalie? I don't so. yes uu tagay qoftii la weydiinaya Rosalie ma taqaanaa liiri maya uu leeyahay You are the lowest form. gabadhiya marka caynayso waxay leedahay qofka ugu hooseeyo yani ugu qaabka daran aan arki karaa tahay adiga. markii hore uu inkiray markii dambe uu ogolaaday marka sababtoo ah telefoonkiisa waxa laga dhaxelay numberkeeda. Oh, what a surprise. We're wearing a set of handcuffs. waan kadibna waxa la wacay Rosaline oo la leeyahay macnaha waxaan ka soo wacinaa telefoon numberkiisa ninkiina waa haynaayo xiran yahay. Don't be shy. Tell what name you're using now. Benjamin Water. taas waxa kaaga sii daran marka telefoonkiisa waxa laga helay ilaa ay number gaarayo 81 qof oo wada dumar ah oo Australiana. marka 81 daas numberna waxay u soo dacwoodeen dawladda ama booliiska. Brian Hayes' job as head of the Queensland Fraud Squad is to catch the scammers. okay marka meeshan hadda waxa la soo fariisiyay dad isugu jiro rag iyo dumar oo dad waaweyn ah oo kulligoodana markaasi ay dhaceen Nigerianka oo scammerska ah. marka hadda haweeneydan oo kale oo ah qof weyn waxay sheegaysaa in laga dhacay ama ay bixisay lacag gaarayso $300,000. macnaha nambaradan waxay iska dhahayaan ma aha dadkan waxay u haystaan Jack. willingly parted with $300,000. $300,000. ugu dambeyn marka nimankan sida u jeedaan waa la xiray oo waa la xukumay ayadoo markaasi lala kaashanayo dalka Malaysia sharciyadiisa meesha ayaa lagu xiri doonaa
kadibna marka ay xabsigooda soo dhameystaan waxaa loo musaafirin doonaa meesha ay ka yimaadeen in Nigeria. I just feel sorry for you. ugu dambeyn markaa muuqaalkiina xaggaas ay kusoo gabagabeynayna dhammaantiin waa mahadsantiin inta muuqaalkan aad daawataan insha Allah inta muuqaal kale aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad.